inaan difaacno diyaar muutiin haddaan sheegow la soo dayno 24 saac gudaheeda inaan dagaalano diyaar muutiin keligii taliska xasan sheekh maxamuud iyo hugunta asu adeegsaday generaalka haddii aan nahay beesha jareerweyn haddii aan 24 saac la soo daynin ninka la leeyahay generaal sheegow isagoo badqab ah oon weliba raaligelin aysan ka bixinin waxaan ka bixin doonaa wax ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay la yaabto waan ku dagaalamaynaa waan ku dhimanaynaa waan ku dhaawacmaynaa waan ogolnahay inaanu ku dhimano qofka marbuu dhintaa laakiin lama ogolaan karo adeer fuli jana ma galo ana runtii idin sheegay fuli jana ma galo ninkii fuliyo wallaahi inaada janno gelin qori ay noqotnay qori nin walba qori gadaa wax kala ma la calaa meesha ma yaalnima shanta kaarwa sharci ka maceliyo inta soo kusoo beerena la xoobi guriyana la boobay gabdheena la kufsaday walaalkeena la gubay keenii kala sharafkeena halka nin oo karaamada noo lahaa aluu bahdil horkeena wili aragnaa cunug xunoo shali soo baxay inuu kuleetiisa qabta ninkii soo dila 10 habiya jannada hore ka galay xata waxaan aaminsanahay naar arkeenin waxaan halkaan isugu imaanay shirkan jaraadna u qabanay inaanu cambaareyno falkii wuxuushnimada ahaa ee lagu weeraray habeen horo ilaa iyo shalay gurigii uu deganaa generaal sheegow waa generaalkii maanta beelaha jareerweyne ee maanta ugu jiray Soomaaliya ha ahaato generaalku wax lagu eedeen lagu weeraray wax iska qorshaysan bay ahaayeen wax macnaha ma ahayn waxyaabaha lagu saleynayana wax anagu aan u leenahay macnaha maanta fir iyo faracna ma aha waayo maanta jareerweyne uma lahan inuu mobeelo dhaco inuu isbaarooyin dhigto laguma yaqaano haddii aan isbaarooyin dhiganayno oo mobeelo aan dhacayno ama aanu macnaha maanta xaqayna lama duudin lahaynoo dawladda federaalka maanta xaq intee la eg baan ku yeelan lahayn haddaan mar hore qoryaha qaadan waagii la qaxayay waa la wada sinnaa dadku way wada sinnaayeen cidna qori ma haysanin qoryihii wax laga wada bilaqaystay dawladdii siyaad bare baa laga wada bilaqaystay markay meesha ka kacday nin walba qori buu qaatay haddaan rabno inaan dad dhacno haddaan rabno inaan dad dilno haddaan rabno inaan xaq islaameed boobno haddaan rabno inaan wax kufsanno markaasaynu qaadan lahayn qoryo oona dad dhici lahayn generaal sheegow asbaab lagu weeraro baa la waayey oo loogu gabaday wiilashii asiga ka tirsanaaba wax soo dhacay asigana waa keed buu ahaa wax jira ma ahan wax jiri doonana ma aha kow tan labaad waxay ahayd wuxuu yiri sheegow wuxuu ahaa dhamme kabtan buu ahaa oona laga fariisiyay shaqada taasna wuu ku fashilmay asiga kala hadlay wuxuu yiri liiskan soo baaray inuu generaal ahaa baan soo ogaaday horta nin booliisa sharciga xataa ninkaas aad uma yaqaano waa un la iska dhigto nagu shaqaysanaya sharciga xataa aad uma yaqaano waxaad ogaanaysaa nin booliisa inuu baxo nin military ah feelkiisa ma baari karo shaqo isku ma laha حتى لو وزارات بكليين وزارة قاشاندقة إي وزارة أمنية كليين تاني جوابا تاسو قد جيا مدة ذاك شيء وحنا دقيقتي لو مقعاوي اللمبر كذا وحو أها سدح بقول سديتن يلح وحو أها ما فهمت الله بكون 2016 كبو أها حلقي الله مقعاوي iyadoo life ana meel walba taala ma ahan mid maanta uu iska dhigayay mideeda kale waxaan leeyahay siyaasiyiinta waxaan baaq u dirayaa dhammaan siyaasiyiinta maanta beelaha jareerweyne sidoo u hadlay wasiir shaasha waa kaga mahad celinaynaa wuxuu yiri haddii xilkayga aan ku waaynayo xataa hadalkan iyo hadallo la mid ah waa hadlaya waana ka dagaalamaya shaasha waa kugu soo dhaweynaynaa waana macnaha waana kugu taageeraynaa waxaan kale oo u baaq u dirayaa cabdifataax qaasin wasiirka ku-xigeenka gaashaandhiga walaal anigu waxaan kuu sheegayaa nin walaalkaaba ayna adeerka ah waxaan kuu sheegayaa maanta ushi walaalka lagu dhufto gumidkiisa aduu ku yaala waxaan dhammaan ku boorinayaa dhammaan ummadda beelaha jareerweyne meel walba ay joogaan inay arrinkaasi aysan ka fariisanin aysan ka ahaanin labada maalin oo horo waxaan rabnaa dhalinyarada dhammaan maanta haddii aan nahay reer Puntland isimada odayaasha kulli meeshan ku wada sugan dhammaan hadalka kama wada gaarno annaga u hadlayno inta kale wayna la wada qabaan ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa shir intaan ka badan haddaynu nahay reer Puntland inaan isugu imaano waan ku dagaalamaynaa waan ku dhimanaynaa
waan ku dhaawacmaynaa waana ogolnahay inaanu ku dhimano qofka marbuu dhintaa laakiin lama ogolaan karo adeer fuli janna ma galo ana runtii idin sheegay fuli janna ma galo ninkii fuliyo wallaahi inaad janna galaynin haddii qadiyadaada iyo maanta dadnimadaada loo yimaado aadan macnaha maanta ka jawaabi weysid fuliyo janna ma galaysid doqonna looma gargaaro nabi Muuse ka deeyri marka waxaan idin sheegayaa bilaashaad meelahan u joogtiine meesha ka kaca cudud iyo ciidan iyo in walba waa idin laga baahan yahay kii aanan cudud haynin ciidan baa laga rabaa ana runtii idin sheegayo insha Allah assalaamu alaykum waxaan cambaaraynaa falka fooshxuna argagax leh lagu dhaqmay generaalkeena General Shogow oo kula dhaqmay aniga tali midna magaca Xasan Sheekh mas'uuliyadaas qaadayo ma fahant shalay markuu General Shogow badbaado qaran oo ahaa Xasan Sheekh Janjaro kula nin fiican buu ahaa oo muqdisho hubka ugu badnaa Xasan Sheekh soo gelinay maanta markii oo yiri isfaam waayeen oo weeraray Saadaq Joon nin fiican waaye oo garaadiiso ku soo celi badbaado qaran ka wada ahaayeen wixii badbaado qaran oo dhan xilkooda ku soo celiyo farmaajo xilka qaaday ninkan Xasan Sheekh awaalkiis wuxuu ka dhigay General Shogow inuu gurigiisa ku weeraro oo caruurtiisa laayo dhaco baarto oo dhahay lacag madow buu sameeyay Xasan Sheekh asaa qaacin wadada asaa hadii contraband iyo wax 30 milyan haysto hadii oo la dagaalamayo contraband iyo tuugnimi wax loo baarnay ma fahant askarta oo dawladda maanu dad baartaan dhacaan cid u hadasha ma leh ma fahant marka falkan waa fal wuxuushnimo oo argagixis ah aan ma dhahay wax kale ku tama dawladda ma argagixisan leh fal argagax waaye arintaas waa cambaarana aan jareeruna waxa u baaqayna isku tashtaan hubkooda qaataan ma fahant oo nin qori ay noqdo nin walba qori gadaa wax kale ma leh calaa meesha miyal nima shanta kaarwa sharci ka maceliyo waxaan ka hadlaynaa arrinkii foosho xumaay oo wuxuushnimada ahay oo lagu la dhaqmay generaalkii Soomaaliyeed ee beesha Jareerweyn ay kula dhaqmeen keligii taliska Xasan Sheekh Maxamuud iyo hugunta asu adeegsaday generaalka Xasan Sheekh Maxamuudna waxaan ku naqaanaa oo sacaan ku yahay madaxda dalka soo marisay kuwa ugu dulmiga badan oo beesha Jareerweyn dulmisa waay dulmigiisa hadda nuguma horeyso markii ka horeysay labada shabeelle waatii ay weerar qaawan ku qaadeen isaga oo u dirsaday shabeellada hoosena ninka ay leeyihiin goobaa leh shabeellada dhaxayna isaga weerar qaawan ku qaado waliba baalihii degnaa shabaab ku tilmaama maantana tiyay la mid tahay waa cambaaraynayna oo mana dulqaadanayno oo mana fadhin doono haddii aan nahay beesha Jareerweyn haddii